waxaa caawa kulan cashaa isugu yimid madaxdii dowlad goboleedyada dalka ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Maxamed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sidoo kale waxaa isna goobjoog ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagaran waxaa sidoo kale isna kulanka qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxaana runtii ra'iisul wasaaruhu u sameeynaya casho soo dhaweyna iyadoo maanta qorshuhu ahaa in shirku uu bilowdo laakiin maadaama duruufo jira awgeed iyo arrimo dhacay awgeed ay dib u soo dhaceen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo berri la filayo inay yimaadaan madaxdii kale ayaa sii arkaysa laakiin shirarka haddii ay markay madaxda isu timaado ay shirarku bilaaban doonaan kulamadan iyo is-aragan waa kuwa hordhaca sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu samayn doonaa kulamo kale oo gaargaara ilaa berri ilaa iyo inta shirku ka bilaabanaya marka ujeedadu waxay ahayd in shirkaas maanta uu qabsoomo alxamdulillah madaxdu waxay soo ajiibeen oo ay soo aqbaleen casuumaadii u fidiyey ra'iisul wasaaraha ilaa haddana shirka diyaargarowgiisa maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu si fiican ugu diyaar garoobay madaxduna maanta si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyay sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in sidoo kale madaxda kale ee imanaysa berina dadku ay soo dhaweeyaan oo la soo dhaweeyo waxaana maaragtay hormuudka ah xubno wasiirra uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo had iyo jeer maaragtay madaxda soo qaabili doona oo soo dhaweyn doona insha Allah waxaan rajaynaynaa shirkii inuu noo bilowdo waxaana nasiib wanaaga in madaxda maanta timid markay hadlaysay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagaran in dhammaantoodba ay qireen in markan maaragtay rajaynayaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan marka ra'iisul wasaaruhu runtii waxaa ka go'an in uu dadaal kasta oo uu samayn karo in shirkan uu guuleysto insha Allah madaxdu way wada hadlaysaa hadalkaas ayaana maaragtay waxa ka soo bixi doona wixii hore loogu socon lahaa marka wada hadaladii bilaabanaya markay madaxda kale ku soo biiraan si rasmi hadii aad u maasantiin